Magacaygu waa Cabdullaahi. Qisadan markii igu dhacaysay waxaan jiray 13 sano. Sida caadadu ah iskuulada dhammaantood waxay aadaan subaxdii iskuulka. Anigana waxaan u soo baxay inaan aado iskuulka. Waxaan isoo raacnay asxaabteyda. Xoogaa markaan soconay kadib ayaan waxa maqlay dhawaq. Waxaan u sheegay asxaabteyda, asxaabay dhawaqan maqlaysaan? Haa ayay igu yiri. Dhawaqan wuxuu ka yeeray dabaq aad nooga fog. Indhaale ayaan ka arki karnay inaa u lugeyna aad ayay noogu adkeyd. Anagana waxaan u qaadanay inay yihiin dhalinyarada iskoolka nala dhigato. Kadibna socodkeena ayaan sii wadanay. Arrinkaasna muhiimad dheeraad maba sii siinin. Waxaan u sii lugeynay iskuulkeena. Socod dheer kadib waxaan tagnay iskuulkii. Sida caadada ah waxaa la bilaabay xiisadda. Waxaana dhageysanaynay macalinka. Laakiin aniga waxaan ahaa mid dhawaqii wili maqla. Dadka dhan way mashquulsanaayeen, waxayna ku mashquulsanaayeen wax qorid iyo wax aqrin. Xoogaa markii la joogay saaxiibkay ayaa wuxuu dalbaday in uu aado suuliga. Macalinkiina wuxuu fasax siiyay saaxiibkay si uu suuliga xaajadiisa ugu soo guto. Saaxiibkay markuu baxay wuxuu maqnaa saacado badan. Asxaabta iyagoo jeejeesaya ayay waxay ku yireen waxaa laga yaabaa in uu musqusha ku dhacay uu wasaqooway oo soo nadiifinayo. Kadib aniga ayaa macalinkii fasaxay wuxuuna yiri soo fiiri maxaa ku dhacay saaxiibka. Laakiin isla markii aan suuliga tagay waxaan soo uray dhiig. Musqushana wax dhawaq ah kama maqlayn. Meesha dhan way aamusneed. Kadib waxaan ka xishooday inaan gudaha galo. Waxaan ku yiri saaxiib ma caafimaad qabtaa? Laakiin qofna mayna ila hadlin. Kadib waxaan fiiriyay suuliga. Waxaan arkay saaxiibkay in la garaafeeyay oo aad loo dhaawacay, lugtana laga gooyay. Aad ayaan u naxay, labana way qabatay. Kadib anigoo qaylinaya ayaa waxaan ka soo ortay suuligii. Waxaan u soo ortay galaaska. Waxaan u sheegay macalinka arrinkii qabsatay iyo dhibaatada haysata saaxiibkay. Isla markii macalinka wuxuu wargeliyay isbitaalka iyo booliiska. Daqiiqado yar kadib waxaa imaaday booliiska. Waxayna bilaabeen baaritaan. Isla markiina waxay galeen suuliga. Waxayna hubiyeen inuu qof soo galay in kale. Waxayna heleen calaamado badan oo cadeynaya dilayga. Isla markiiba waxaa igu soo dhacday qayladii aan ka maqlayay banaanka. Waxaan u sheegay booliiska qayladii aan banaanka ka maqlayay. Booliiska isla markii waxay imaadeen meesha qaylada aan ka maqlayay. Waxayna arkeen 4 qofood oo dhibaatooyin loo geystay. Iyagana sidoo kale lugaha laga gooyay aadna loo dhaawacay. Ninkiina gacanta laguma dhigin. Deegaanka meesha degnaa dhammaantood waxaa gashay cabsi iyo walwal. Saaxiibkayna waa la daaweeyay. Asigoo jiis ah ayuu iskoolka isku soo raaci jirnay. Laakiin aniga xataa waan ka baqaa inaan arko ninkaas. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜